nolol kastoo adag way dhamaataa balse waxay soo saartaa shakhsi adag oo lagu daydo adiga oo noqon kara mid aamusan oo hadalkiisa la raadiyo haddaba noqon mid hadalkiisa la dhifsado hadiyada ugu fiican ee aad naftaada siin karto ayaa ah in aad iska ilowdo wixii tagay oo aadan ka walwalin timaatada mustaqbalka marnaba ha ogolaan in uu qof ku liido ama uu ku dareensiyo in aadan qiimo lahayn ha ka cabsan cadowga ku soo weeraray oo ku soo bareero laakiin iska ilaali saaxiibka beenta ah oo hab ku siiyo sharafta ayaa kaaga qaalisan ruuxa dunida ugu jeceshahay intaad naftaada karaama beel aad ku ridi lahayd kaliya noolow haddaad weyso ruuxa aad jeceshahay ma dhimanaysid balse haddaad sharaftaada weyso adigoo nool ayaad mid noqonaysaa haddaba dadka oo dhan ma loo wanaagsanaan karo balse aamin naftaada ka aamin inaad tahay ruuxa ugu khayrka badan ku hadal cad oo la fahmi kara weliba cod dhexdhexaad ah hana ku dhawaaqin hal mar ka badan waayo waa muujinta kartidaada hadduu qof ku bahdilo ee dadkoo dhanna qoslaan indhihiisa eeg xoogaa yar dhoola caddeey waa la cabsi baa galayso ku socod dhexdhexaad ah gacmahaagana gadaal mari cilmi nafsiga wuxuu sheegay in ay ka mid tahay calaamadda kalsoonida waxaa dibiyaha laga waayo wuu dhintaa qalbigana haddii naxariis iyo jacayl laga waayo asagana wuu dhintaa walaalkaygiyo u dhaabicin qalbiga walaalka u naxariiso qofka ku jecelna jeclow sababtoo ah nolosha waa jacayl jacaylku waa farxad farxaduna waa kalsooni